magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo xilka kula kala wareegayeen maayarka cusub ee degmada Caynab iyo ku-xigeenkiisa dhawaan la doortay iyo waliba maayarkii iyo ku-xigeenkii hore. munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo sidoo kale barasaabka gobolka Saraar. ugu horreynba munaasabadaasi waxaa ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada Caynab Cumar Maxamuud Muuse, xildhibaano ka tirsan golihii hore ee deegaanka degmada Caynab waqtigu ka dhamaaday iyo cuqaal iyo xkarad kala duwan, waxayna dhammaantoodba soo dhaweeyeen maayarka iyo ku-xigeenka cusub ee la doortay iyagoo sii sagootiyay maayarkii iyo ku-xigeenkii iyo golahoodii hore. ayaa la soo furiyay oo soo qabsoomay ragga odayaasha ee soo gudbay kelmadii wixii aan kala soo shaqeeyay baan rabaa inaan dhowr kelmadood ka xuso. mudane gudoomiye iyo agaasime waxyaabaha xoogga la saaray golaha deegaanka ee hore halkan joogay waxaa ugu muhiimsanaa ruux ahaantii nabadgelyada oo maanta ruux ahaantii beelaha degan halkan waxaan garufo oo ku dhex jirta ayna jirin. kale ee la qabtay ugu muhiimsan abaarihii ina soo dhaafay ruux ahaantii waxa weeyaan aad iyo aadna gobolka ugu habsaday maadaama uu xoolo dhaqato ahaa. siyaasadda dejinta barakacayaasha meelo badan degan oo ay ugu badan yihiin degmada Caynab dadka degan. waxaan leeyahay gudoomiye maayarka cusubow waxaad u diyaar garowdaa saaka laga bilaabo in lagu maago oo lagu xanto oo uu qaato la yidhaaho oo waa xumeeye la yidhaaho oo waa qabyaaladii la yidhaaho, laakiin dulqaad iyo mas-uuliyad baa laga rabaa. xilkuna isagaa maagista leh, nin walibana waa siduu ahaan jiray. waan kala dardaarmayaa golahan deegaanka ee cusub hawl cusub baa laydin dhiibay hawsha cusub haddaanu nahay waayeelkii gobolkan iyo deegaankiisa kulli halkan in badan baa fadhidee waan idinkula shaqaynaynaa. waxaan idinkula shaqaynaynaa sidaa noola shaqaysaan ee aan talada iyo arrinka iyo shaqada aynu laydin igmaday ayaanu idinla shaqaynaynaa sidaa noola shaqaysaan. maanta gobolka ayaa maayir iyo maayir ku-xigeen iyo golo deegaan tihiin. waxaanu difaraynaa inaa cadaalad, sinaan, daacadnimo iyo raaligelin cid kasta raaligelisaan. waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow, gudoomiyaha cusub soo dhow baan leeyahay. gudoomiye kii dalkiisa dadkiisa anfaca Allah ka dhigo. gudoomiye horena waxaan leeyahay gudoomiyaadna nabaday xasan xufeeya dowladda hoose shaqada waa ka soo noqday, baarlamaanka waa ka soo noqday, maanta halkii ugu sarreeyay uu joogaa. xasan waayaha dowladda hoose waad ka warhaysaa, waayaha dowladda hoose waad ka warhaysaa. wixii aad markaa dibadda joogtay ku muuqday maanta adiga laga rabaa tus. maayarkii hore degmada Caynab ee xilka maanta wareejiyay Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf iyo ku-xigeenkiisii Nuur Iidla Ducaale ayaa halkaasi kaga xogogaal warramay waxyaabihii uu qabsoomay intii ay shaqada hayeen, iyadoo sidoo kalena maayarka cusub ee degmada Caynab loo doortay ee maanta xilka la wareegay Xasan Yuusuf Aadan iyo ku-xigeenkiisa cusub Cabdi Xaafid Libaax Salaax iyaguna halkaasi kaga dhawaaqeen waxyaabaha u qorshaysan inay ka qabtaan inta ay xilka hayaan. soo dhawaada kursigii aan haynay ee aan ummadda ku hogaaminayna ku maamulna ku soo dhawaada idin leenahay. ilaahayna xilka ha idin fududeeyo, waana idinla shaqayno. waa la sii sagootiyayahay, waa tagi mayno la fadhiisayna waxaa noo dirta baan noqonayno. meeshaanu maanta keennay waa meel aad iyo aad u qurux badan sidii horeba loo sheegay. maanta waxaanu keennay halkaa ay joogto guryaha halkan xarunta dowladda hoose waxaanu ku hagaajinay wasaaradda arrimaha guduhu golaha deegaankaana odaga u ahaa. markaanu weyne dhaqaalaha dadka ka soo qaadno oo aan wax ku qabanno golaha iyagu waanu shirnay. waxaanu ku shirnay maxaynu meesha kaga tegaynaa, maxaa berri inoo taariikha, maxaa inoo waxqabada, maxaa inoo sumcad iyo mustaqbal dambe ah. kadibna waxaanu isla garay dhaqaale ma hayno dowladdeeda hoose soo saarto kabka bangigaana kaga qoro oo aanu ku dhisno horumarina naloo siiyo. isagoo aan dhammaan ayaanu masale dib u qorshayno war maxaynu qabanaa. maxaynu ku miibsanoo cagaf. maanta dowladda hoose waxay taagan tahay meel 4 taayir ku taagan oo guuxaysa oo u baahan in furaha in lagu rogo la sii istaago halka laga dhaqaajiyo. marka anagu gacanta noogu jira waxa weeye inaanu ka shaqeyno magaalada caasimadda ahayd oo gobolka ay noqoto magaalo caasimada oo indhaha dadka dhex maraya ay ku hirtaan oo aanay noqon meel indhow ka boodaan. hadday tahay wadooyin, hadday tahay caafimaad, hadday tahay dhammaan arrimaha bulshada waxyaabaha xaq u leeyahay, hadday tahay nadaafadda,
hadday tahay weelka meheradaheenu wax ku kariyaan hadday tahay annaguna waxaan noqon doonaa diranayaal idiin diran oo magaalada idiin jooga kuwaana waanu kala shaqayn doonaa waanu ka hadli doonaa magaalada baahiyaadkeeda aasaasiga ee dowladda dhexe naga xidhan ballanqaadkayga waxaa ka mid ah lambar 1 horta wadooyinka magaalada iyo bilicda magaalada inaan marka koowaad shaqadeeda ka bilaabo oo boqolka maalmood ugu horeeya ka bilaabo ayaan insha Allah ku ballan qaadaya bilicda magaalada nadaafadeeda laamigan googaane deeqad moodid in maartay shaydaan jiray aad moodid inaan hadii aan leedno wax qabadka ugu horeeya boqolka casho ugu horeeya isla garano inaanu ka bilowno ina waxa kamida nabadgelyada kamida seerayaasha ayaa kamida ummadeennii duleystay ee xoolaheennii miyiga duleystay ee dalkii ka xidhay inaynu la dagaalano ayaan insha Allah aniguna ku tala jiraa ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee wasaaradda amuraha gudaha Soomaaliland Saciid Axmed Jibriil iyo barasaabka gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa eebe uga bariyay in xilka u fududeeyo mas'uuliyiinta cusub ee degmada loo doortay ayna shacabka ku dhaqan degmada Caynaba ka codsadeen inay gacan ka siiyaan sidii shaqada ay shacabka u hayaan ay ugu fuli lahayd si habsami ah xil wareejinta labada golo degaan ay kala hogaaminayaan maayirkii hore iyo ku-xigeenkiisu iyo maayirka dambe iyo ku-xigeenkiisu waxaan leenahay qoladii hore waa maasan tihiin in badan baad u soo shaqayseen dadweynaha reer Caynabo qolada cusub waxaan bogaadinayaa sida wacneed iyo sharafta lahayd ee noola sii shaqeeyeen maayirkii hore iyo ku-xigeenkiisa iyo golihii hore deegaanka gudoomiyaha cusub runtii iyo ku-xigeenkiisa iyo golaha cusub waa rag dhalinyaro ah oo runtii aqoonyahana iyagana waa soo dhaweynaynaa kow waxaanu leenahay waxaad nagala shaqaynaysaan oo saldhig u ah waxa weeyaan waa nabadgelyada kow priority-ga waxaa inoo ah qarankan u ah gobolada u ah innaga inoo ah inaynu nabadgelyada kow ka shaqayno markaynu nabadgelyada aynu ka shaqayno laba waxay noo xigaa horumar waxaan ku waaninayaa kula dardaarmaya sidaa imika ay sheegeen inay la yimaadaan qorshayaal jaan go'an oo runtii socon kara golaha cusub waxaan kula dardaarmaya waa muxuu ahaa golihii hore waxa uu ka warramayo oo ka yarayd intaa ka yarayd imikana waa laydiin wada dhammaystiray kuwaartarkii ugu horreeyey 3 biloodkii ugu horreeyey sanadkan aan ku jirno imikana waa la soo daayay waxaa la doonayaa golihiina cusub inuu horumarku intaa ka sii bato maadaama laba lacagayow oo ay dowladda Soomaaliland leedahay ay idinku timid wasaarad ahaan waxaan ballan qaadaynaa haddii ay idinka timaado golihiina cusub hadday ka timaado inaan idinla shaqayno waxaan ballan qaadaynaa inaan kormeer joogtaa idinku hayno ugu dambeyntiina maamulaha cashuuraha beriga gobolka Saraar ayaa halkaasi waxa uu shahaado sharafyo ku maamusay maayirkii hore degmada Caynaba iyo ku-xigeenkiisii iyo sidoo kale xogayaha dowladda hoose degmada Caynaba ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee wasaaradda amuraha gudaha Soomaaliland Saciid Axmed Jibriil iyo barasaabka gobolka Saraar waxay soo kormeereen wadooyin laami ah oo laga hirgelinayo qaar kamid ah xaafadaha kala duwan ee magaalada Caynaba jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba